gaaska ma keenaa garba xanuun haddii uu keenana sidee lagu fahmaa marka uu garba xanuun ka yimid gaaska insha Allah si faahfaahsan ayaan u sharxeynaa sidoo kale waxaan bixinaynaa talooyin iyo wacyigelin ku aadan garba xanuunka ka faa'iideysi wacan waxa suurtagal ah inaad sida dadka qaar isbitaal tagtay baaritaan lagu sameeyay raajo lagu saaray kadib lagu sheegay in garbahaada ay wax dhib ah qabin yani adigana wali xanuun dareemayso sidoo kale waxa macquul ah يعني إن داو لوسي بالسولي قربها يعني أما كالحمها يوحد لمدة حنون كدريميسو إن شاء الله صفة فاصلة وشرح دونا فايديسو عن لو ذاك أصحاب هذا سيكون كل فايديستان كرسو دواد مركلي برامج kala soo barnaamij caafimaad oo taxan ah talooyin muhiim ah oo ku aadan caafimaadka sida wacyigelinta bulshada ee ka hortagga xanuunada halista ah iyo daaweyntooda gaaska waa xanuun ka mid ah xanuunada ku dhaca dheefshiidka balse sida baan yani ugu baaha xubnaha kala duwan ee jirka taasoo keenta in qofka qaba gaaska uu ku wareero nooca xanuun ee haya yani asagoo isku mara dhaqaatiir fara badan oo qaybaha kala duwan yani ee jirka qaabilsan asagoo qofka yani u maleynayo inuu qabo xanuun halis ah balse marka qofka yani la baaro loo sheego in xubnaha jirkiisa ay caafimaad qabaan marka aan soo laabano sidee lagu fahmaa marka garba xanuunka uu ka yimaado gaaska macnaha garba xanuunkan aad dareemaysid marka uu yahay mid ka yimid xanuunka gaaska haddii garba xanuunka ay ku soo raacaan calaamadaha soo socdo ama qaar ka mid ah waxay u badan tahay inuu ka yimid xanuunka gaaska sida tusaale haddii garbaha ay ku xanuunayaan uu ku soo raaco xabad xanuun oo xabadka feeraha xanuun ka dareemay ama uu ku soo raaco oodin oo wax kugu taagmaayo oo kale ama wadnaha yani mar garba xanuunku waa dareemay wadnahan xanuun ama culays ayaa ka dareemaysaa ama wadna garaac ayaa dareemaysaa ama naqas ayaa ku soo raacay garba xanuunka ama waxa ku soo raacay tabar darri yani tabarta dhan yani adoo waxba sameeyno shaqo qaban inaad tabar darri dareento ama waxa ku soo raacay korhur ama olol ama kuleel jirka inaad ka dareemaysid ama yani waxa ku soo raacday cuntada marka cunto kale inaad dib u soo celinayso wax biyo kulul ama cuntada cunta ama cabitaanka cabdi gadaalna u soo laabanayso oo kale afka yani ku soo laabanayso ama suux marka soo kacda dhuunta xanuun ka dareento inaan qoomad iyo wax qabta ah maleys laakiin aadan qabin oo gaaska yahay mar garba xanuunka day macnaha dhuun xanuun ay ku soo raacay ama dadka qaar walwal ayaa u soo raacay markuu jiifto qofku waa soo booday iyo ku dhaa walwal ayaa u soo raacay dadka qaar madax wareer ayaa u soo raacay calaamadii hadaan soo sheegay gaaska madax wareer ayaa u soo raacay marka qofka marka xanuun baabi'i la siiyana waxba uu ka tareen wax isbedel sameeyeen xaalad sideeda ay sii tahay isbitaalka qofku markuu aadan loo sheegay inuu wadnaha ka jiraneen sanbabihiisa fiican yihiin jirkiisa kala fiican yahay garbaha haddii raajitay wax laga saarana wax dhibaato uusan ka qabin loo sheego calaamadii aan soo sheegnayna garba xanuunka uu soo raaco waxay u badan tahay garba xanuunkaas yani inuu ka yimid xanuunka gaaska oo gaaska ayaa la xiriirinayaa gaar ahaan nooc loo yaqaan laabjeexa laakiin haddii garba xanuunka ay ku soo raacdo boggo inuu xanuun ka dareemaysid boggo waxaa la dhahaa meeshan caloosha iyo feeraha u dhaxayso dhexda danqasho ama nabar camal ka dareemaysid lalaba aad dareemaysid matag aad dareemaysid iyo wax la mid ah garba xanuun ay ku soo raacaan ayadana markaas gaaska nooca gaas caloolka loo yaqaano ayuu ka yimid macnaha garba xanuunkaas marka calaamadaas isku raacaan ayaa loo fiirinayaa oo labada nooc waa gaas laakiin midna laabjeex waayo oo gastroesophageal reflux ayaa la midna waa peptic ulcer ayaa la dhahaa oo gaas calooleedka waxaan la dhahaa waa gaaskan caloosha mandheeraha ku dhaco marka calaamadahan saas ay kala yihiin oo garba xanuunka soo raacay marka inaad fahanteen ayaa rajaynayaa sidii lagu fahmo garba xanuunka marka uu ka yimaado xanuunka gaaska insha Allah inta ku soo koobaynaa wixii su'aalaha qabtaan qayb faal ama comment inoogu reebo waa idin ka caawin doonaa insha Allah inta ku soo koobaynaa casharkeena. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.